قصص القرآن مدى الأيام ومعانيها تروي الإلهام لبني إسرائيل بيانا من بعد العزة والإكرام. si guud haddii aynu u eegno markii uu bukhuntusar burburiyey Orshaleen waxaa xukunka Falastiin u kala dambeeyay dowlado kala duwan oo kala ahaa dowladii Kaldaaniyiinta ama Baabiliyiinta oo xukumaysay sanadkii 586 ee miilaadiga hortii ilaa iyo sanadkii 538 ee miilaadiga hortii waxaa ku xigtay dowladii Furus oo iyaduna xukumaysay laga soo bilaabo sanadkii 538 ee miilaadiga hortii ilaa iyo sanadkii 330 ee miilaadiga hortii kana talinaysay dhulka Falastiin. sanadkii 330 ee miilaadiga hortii waxaa xukunkii Falastiin la wareegay Yunaaniyiintii oo hayay talada dhulkaas ilaa iyo sanadkii 330 ee miilaadiga hortii waqtigaas oo ay kala wareegeen dowladii Badaalisada taas oo iyaduna xukumaysay ilaa iyo laga soo gaaray sanadkii 200 ee miilaadiga hortii waxa iyana xukunka kala wareegay dowladii Saluuqiyiinta oo iyaguna hayay ilaa iyo sanadkii 167 ee miilaadiga hortii waxa iyagana xoog ku muquniyay Makaabiyiintii oo iyaguna ka talinayay Falastiin ilaa iyo sanadkii 73 ee miilaadiga hortii waxaana Makaabiyiinta ka faramoloojiyay dowladii Roomaanka kuwaas oo iyaguna ka talinayay laga soo bilaabo sanadkii 73 ee miilaadiga hortii ilaa iyo sanadkii 614 ee miilaadiga dabadii waana xilligii ay muslimiintu burburiyeen dowladii Roomaanka. haddaba daawadayaal maadaama oo dhulkaas barakeysan uu ahaa kaas ay dowladaha iyo ummadaha kala duwan ay isku hirdayeen waxa aad garan kartaa in ay taariikhdeeda iyo sheekooyinkooda aan laga gayoon karin. haddaba waxa ay ujeedadeenu tahay in aynu guud marno yuhuudii dhulkaas ku nooleed iyo sooyaalkooda nololeed iyo waliba sidii ay dowladahaas kala duwan ula macaamili jireen waxaana aynu isku dayi doonaa insha Allah in aynu sida ugu koobnaanta badan leh u soo gudbino. laga soo bilaabo sanadkii 586 waxa ay magaalada Qudus ama Orshaleen ahayd muddo 50 sano ah mid cidlo waaqla ah oo kharaab ah guryaheeda iyo dhismaheeda oo dhamina ay burbursan yihiin waxaana ay yuhuudi u qaxeen oo ay ku nooleeyeen dhulka Baabiliyiinta ama Kaldaaniyiinta taas oo ay la qabsadeen noloshii barteen farsamooyin ay ku shaqaystaan si aanu dhaqankoodu u luminna waxa uu Ilaahay si joogto ah ugu soo diri jiray nebiyo kala duwan oo diintooda bara. sanadkii 538 ee miilaadiga hortii waxa uu Kurush oo ay yuhuudu garab siinaysaa jabiyay dowladii Baabiliyiinta ee uu hogaaminayay Bukhuntusar waxaana uu Kurush u ogolaaday yuhuudi in ay dib ugu noqdaan Falastiin gaar ahaan Qudus isagoo oo u dhisay magaaladii waxaana uu u cusboonaysiiyay haykal Suleymaan hase yeeshee intoodii badneed waxa ay macaansadeen noloshii Ciraaq oo tiro aan badnayn ayaa dib ugu soo noqotay dhulkii Falastiin. boqorkanina waxa uu ahaa kii aasaasay dowladda Furus si fiicanna waxa uu la dhaqmi jiray yuhuudda oo taariikhyahanada qaar ka mid ah ayaa sheegay in uu ahaa nin muxsin ah oo haystay diin samaawi ah rumaysnaana nabi uu Ilaahay qoladiisa u soo diray sidaas awgeedna uu ugu hiiliyay yuhuudda maadaama oo ay diimahooda iyo shareecadooda isku soo dhawaayeen. kuwa kalena waxa ay sheegaan in uu yaraantiisii boqorkani la soo koray yuhuudda sidaas awgeedna uu weynaantiisii u wanaajiyay. sanadkii 330 ee miilaadiga hortii waxa dagaal uu dhex maray boqorkii Iskandar la oran jiray culimada taariikhduna ay aaminsan yihiin in uu ahaa Dulqarnayn iyo boqorkii la oran jiray Daaraagi saddexaad waxaana ay guushu ku raacday Dulqarnayn isagoo aad u wanaajiyay yuhuudda. waxa kale oo uu aad u xurmeeyay Dulqarnayn reer Banu Israa'iil waxaana uu intii uu xilka hayay soo boqday Qudus iyo haykal Suleymaan. sanadkii 330 ee miilaadiga hortii waxa geeriyooday Dulqarnayn waxaana xukunka isku qabsaday laba ka mid ah abaanduulayaashiisii waaweynaa ugu dambeyntiina waxa ay kala qaybsadeen dhulkii waxaana nasiib u helay Falastiin in uu maamulo boqorkii Masar ee Bidlimoskii koobaad. boqorkani waxa uu yuhuudda u sameeyay maamul gaar u ah oo uu u taliyo boqol iyaga ka soo jeeda. haddaba waxa dhacday in ay yuhuudi ku kaceen dowladii Bidlimos taas oo dhalisay in uu dhirbaaxo xun ku dhufto si daranna uu u ciqaabo isagoo oo 100,000 oo yuhuud ahna u qixiyay Masar. sanadkii 285 ee miilaadiga hortii markii uu geeriyooday Bidlimoskii koobaad waxa xilka la wareegay Bidlimoskii labaad kaas oo wanaajiyay yuhuudi si fiican ula dhaqmay waxaana uu u ogolaaday in ay dib ugu noqdaan Falastiin. culimada taariikhda kuwa kamid ah waxa ay sheegaan in uu boqorkani ahaa kii dhisay maktabada weyn ee Al-Iskandariya. sanadkii 322 ee miilaadiga hortii
waxaa xukunkii la wareegay Bedlimoskii saddexaad waxaana la sheegaa in ay yuhuuddii diideen in ay bixiyaan cashuurtii sanadlaha ahayd ee uu boqorkaasi ka qaadi jiray. markii ay sanado badan isku gaadhay ayaa uu boqorkii Falastiin u soo diray abaanduulahan oo ugu hanjabay haddii ay si degdeg ah u bixin waayaan in uu Falastiin ka qaxin doono. hanjabaadaas oo cabsi ku beertay reer banu Israa'iil waxa ay sababtay in ay boqorkii baryaan ilaa uu ka cafiyay deyntii ama cashuurtii sanadaha badan isku gaadhay. haddaba xukunkii markii uu la wareegay Bedlimoskii afraad ayaa waxa weerar ku soo qaaday boqorkii Antiochos oo ka talin jiray dowladii Salaaqiyiinta ee Suuriya ka jirtay, waxaana uu xukunkii Falastiin ka faramuroojiyay Bedlimoskii afraad. kadibna waxa uu si xun ula dhaqmay yuhuuddii waana uu bahdilay. hase yeeshee waxaa soo rogaal celiyay Bedlimoskii afraad oo Falastiin ka saaray Salaaqiyiintii. guushaasi ma aysan ahayn mid raagtay oo dib ayay iyagiina u soo rogaal celiyeen ilaa ay si buuxda Falastiin gacanta ugu dhigeen sanadkii 200aad ee miilaadiga hortii. intii u dhaxaysay sanadkii 200aad ee miilaadiga hortii ilaa iyo sanadkii 167aad ee miilaadiga hortii Salaaqiyiintii waxa ay si xun ula dhaqmeen yuhuuddii iyaga oo bahdilay kuna khasbay in ay caabudaan diintooda dhaqankoodana qaataan. waxaana uu badho saabkii dowladdaas u fadhiyay Qudus ee Asniyos lagu magacaabi jiray sanamadoodii ka dhex taagay haykal Suleymaan isaga oo sanduulo yuhuudi kaga dhigay in ay caabudaan asnaamtoodaas, taas oo ay ajiibeen in badan oo ka tirsan shacabka yuhuuddu. haddaba sidaa xun ee ay Salaaqiyiintu ula macaamishay yuhuudda waxa ay keentay in ay culimadoodii cadhooto oo ay samayso kacdoon, taas oo dhalisay sanadkii 166aad ee miilaadiga hortii kacdoonkii weynaa ee ay wadaadadu horkacayeen. kacdoonkan waxaa horkacaya wadaad la odhan jiray Mataasiya iyo 5 wiil oo uu dhalo lagu magacaabi jiray Yuxnaa, Samcaan, Yahuuda, Caasaar iyo Yoonataan. waxaana uu wadaadkani tegay magaalo Muudin la odhan jiray isaga oo halkaas ku suganna waxa uu yimi ergooyin ka socda Salaaqiyiintii kuwaas oo ka codsaday in uu u hoggaansado dowladda. hase yeeshee wadaadkan ka cadhaysan sida xun ee yuhuudda loola dhaqmay waxa uu dilay qaar ka mid ah ergooyinkii, waxaana uu dadkii magaaladaas u sheegay in ay raacaan ciddii taageersani. kadibna waxa uu galay oo fadhiisin ka dhigtay buurihii isaga oo bulsho badan wata. haddaba markii uu wadaadkii geeriyooday ayaa waxaa la wareegay hoggaankii jabhadda wiilkii uu dhalay wadaadkaasi ee la odhan jiray Yahuuda, waxaana uu dagaal adag dhex maray Bedlimos oo ahaa abaanduulihii Salaaqiyiinta, taas oo uu ka gacan sarreeyay Yahuuda. waxaana dhacay dagaallo dhowr ah oo mar boqol guuleysanaysay ilaa iyo sanadkii 165aad ee miilaadiga hortii oo uu ku guuleystay Yahuuda in uu jabiyo ciidankii Salaaqiyiinta, waxaana uu suurto gashay in uu magaalada Qudus furto. haddaba sanadkii 161aad ee miilaadiga hortii waxa ay Salaaqiyiintii soo qaadeen dagaal ba'an kaas oo ay ku jabiyeen Makaabiyiintii uu Yahuuda horkacayay, waxaana ay jabhaddii dib ugu celiyeen buurahoodii. sanadkii 104aad ee miilaadiga hortii waxa magaalada Qudus furtay Makaabiyiintii oo uu horkacayo Aristobulos kaas oo isku caleema saaray boqornimo. hase yeeshee ma uusan carfan boqornimadii oo waxa markiiba ay iskhilaafeen walaalkii Antigonus, khilaafkaas oo keenay dagaallo googoos ah. waxa kale oo Salaaqiyiinta qudhooda u dhaxeeyay khilaaf ballaaran, sidoo kalena waxa uu dagaal u dhaxeeyay Salaaqiyiinta iyo dowladii Roomaanka, waxaana ay taasi yuhuuddu u saamaxday in ay helaan jaanis yar oo ay Qudus ku maamushaan. sanadkii 63aad ee miilaadiga hortii waxaa xukunkii magaalada Qudus isku qabsaday Hyrcanus iyo walaalkii Aristobulos, khilaafkaas oo dhaliyay in ay wiiqanto awoodoodii. waxaana damaaci soo galay dowladii Roomaanka oo iyadu doontay in ay fursadaas ka faa'iideyso. ciidankii Roomaanku waxa ay u soo gurguurteen dhankii Falastiin. durtaba waxa uu yimi Hyrcanus oo rabay in ay walaalkii la wada dagaalamaan. Aristobulos waxa uu difaacada ka galay magaalada Qudus. dadaal dheer kadibna waxa ay jabiyeen Roomaankii Aristobulos. culimadii iyo wadaadadii yuhuudduna waxa ay iyaguna difaacada ka galeen haykal Suleymaan, taas oo ay Roomaankii furan kari waayeen, waxaana ay 3 bilood ku hayeen go'doomin ballaaran. ugu dambeyntiina waxa Roomaankii u suurto gashay in ay furtaan haykal Suleymaan iyaga oo si xun u laayay yuhuuddii tiro badanna ka gumaaday. dowladii Roomaankuna waxa ay madax uga dhigeen magaalada Qudus Hyrcanuskii u yimi si ay walaalkii ula jabiyaan. walaalkii Aristobulosna waxa ay u qafaashteen dhulkoodii. haddaba sanadkii 57aad ee miilaadiga hortii inan uu dhalay Aristobulos oo la odhan jiray Iskandar ayaa dagaal ba'an ku soo qaaday adeerkii Hyrcanus, waxaana uu la wareegay magaalada Qudus ama Orshalim. laakiinse guushiisii ma aysan noqon mid raagta
oo markiiba ciidan faraweyn ayay dowladii Roomaanku u soo dirtay waxana ay jabisay Iskandar waana ay caadisatay ilaa iyo aakhirkii isdhiibay una hoggaansamay Roomaankii isla sanadkaas uu Iskandar isdhiibay aabihii Aristobulus ayaa Roomaankii ka soo fakaday waxana uu firdhad ku soo galay Qudus kadibna dad badan ayaa taageeray isaguna inta uu isku duba riday ayaa uu jabhad sameeyay waqti yar kadib waxa dhirbaaxo kulul ku dhuftay ciidankii Roomaanka waxana ay dib ugu celiyeen jeelkii uu ka soo fakaday sanadkii 49 ee miilaadiga hortii waxa mar labaad kacdoon abaabulay Iskandar waxana lagu jabiyay oo laga dilay mid kamid ah dagaaladii uu soo qaaday haddaba sanadkii 37 ee miilaadiga hortii waxa kacdoon bilaabay Iskandar walaalkii oo la oran jiray Antigonus ahaana wiilkii uu dhalay Aristobulus waxana uu suurta gashay in uu qabsado Qudus kadibna waxa dagaal ku soo qaaday ciidamadii Roomaanka kuwaas oo ay u suurta gali weeday in ay furtaan Qudus waxana ay go'doomiyeen magaalada muddo 6 bilood ah ugu dambeyntiina waxa ay ku guuleysteen in ay Qudus furtaan waxana ay si xun u laayeen Yuhuudii xoolahoodiina waa ay boobeen sidoo kalena Antigonus waxa ay u geeyeen qaysarkii Roomaanka kaas oo si xun u dilay sanadkii 34 ee miilaadiga hortii waxa ay Roomaankii Falastiin u soo dooreen boqor Ayrosis lagu magacaabi jiray waxana reer Banu Israa'iil u dhacay gabal xun oo madow xaaladii ayaa ku adkaatay waxana muddadaas uu Ilaahay u soo diray oo uu ku kulmiyay 3 nabi saddexdaas nabi oo ay laba kamid ah 6 sano gudahood ku dileen kan kalena ay sigeen haddaba xilqadeena dambe ayaanu ku soo qaadan doonaa 3 nabi magacyadooda cidii dishay iyo sababtii loo dilayba